السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. meesha aad imika naga daawanaysaan waa channelka Wargal Media. qodobada iyo wararkan idin hayno waxaa kamid ah wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo sheegtay tirada guud ee dadka laga helay cudurka coronavirus. dalka Mareykanka oo aad u saameeyay cudurkaasi oo noqonaya dalka ugu saameynta badan oo wasiibay cudurka coronavirus. haweeney Turkish oo aad u daaweyn oo noqotay shakhsiga ugu daaweyn ee ka bogsooday cudurka coronavirus ee lagu magac daray COVID-19. Shiinaha oo dalkooda ka mamnuucday cunitaanka xayawaanada rabaayada sida bisadaha iyo eeyaha. magaalada Beled Xawe ee gobolka Gedo oo lagu arkay shakhsiyaad looga shakiyay cudurka coronavirus halkaas oo maamulka degmadaasi ay ku karantiishay guryahooda.